السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee nagu xiran. waxaan rajeynaa dhammaantiina nabad iyo caafimaad qabtaan. alxamdulilah anagana waa fiicannahay. muuqaalkan wax yar u socon doonaa sababtoo ah waa boos laamiga u dhow, deegaankiisana bannaanka uu yahay maasha allahna ah. waxaan ka hadli doonaa oo idin tusin doonaa meeshuu ku yaalo iyo qiimihiisa iyo xogtiisa oo dhan. soo dhawaada marka intaan follow noo ahayn ama subscribe noo ahayn, subscribe noo saaran, kambareelka furtaan, muuqaalkana like iyo share noo dhaa. dhammaantiin waa mahadsantihiin. waxaa joognaa Daarsalaam, waxaa ka joognaa laamiga dhinaca qorax ka soo bax oo qoraxdu ay ka soo baxdo. waxaa iib ah booskan ku dhegan gurigan, macnaha dabaq haafka ah, macnaha gurigan asaas dabaqa loo diyaariyay. gurigan uu ku dhegan yahay, jihadiisa waa koonfur, waa meeshan geed yahuudiyadu ka baxayaan. sidaas ay xaafaddu u shidan tahay ee u dhisan tahay ilaa laamigana deegaankeedu uu ishaystaa. booskan laamiga aada ugu dhow yahay, macnaha laamiga darisuu leeyahay, waxba uma jiro. kilomitir aa idiin saari doonaa, waana arki doontaan. booskan cabirkuu ku fadhiyo waa 20 lagu dhufto 15. waa meeshan geedaha ay ka baxayaan. dabaqyada dhareer koraa idinka tusinaya, way naga fog yihiin, ma dhow. baloog shanaad miya meelahaasay ka dhisan yihiin umalaynaa. anagana waxaa joognaa baloog 3aad. booskan marka cabirkiisu waa 20 lagu dhufto 15. iskuul darisuu leeyahay, sidoo kale masaajid darisuu leeyahay, dugsiyo darisuu leeyahay. wax walba oo u baahan tahay waa meel aad ka heli kartid. macnaha waa boos baahiyaadka bini'aadanka inta badan haysto ama ay u dhameystiran yihiin. laamigana kaliya waxaa kaa xigta 3 daqiiqo. 3 daqiiqo kadib laamiga waa joogtaa. waa dhaqaaqna hadeer kilomitir saarena nala fiiri. kilomitirka markaa saarno inta kilomitir uu u jirsan karo laamiga. kilomitir ma wala dhihi kara, laakiin inta 100 oo tilaabo oo laamiga uu u jiro nala fiiri. eber ka dhignay, waa soo dhaqaaqnay. sidoo kale xaafadda nala qiimeeya saa u ogaataan xaafaddan inay tahay xaafad shidan, horena laga degi karo. booskan sababta aan kugu soo bandhigo wax weeyaan lacagtiisu waa raqiis, aad u lacag yar yahay. wuuna lacag yar yahay, waana bartamihii deegaanka, waa bartamihii. Daarsalaam aargada intaana la gelin aana laga soo leexanaya. macnaha Daarsalaam aargada gudaheeda ma ahan. marka magaalada Muqdisho laga imaado, aargada Daarsalaam intaada gelina waxaa u soo leexanay kadiga qoraxda ay ka soo baxdo. kadibna kaliya waxaa soo socon doontaa 300 oo tilaabo. 300 oo tilaabo kadibna waa joogtaa. wadadan jacay waaye, ayadaan toos ugu tagi doonaa laamiga. booskan qiimihiisu waa raqiis. xitaa dad waxaa jira dan yar oo lacaga badan aan haysanin, wax yar ay aruuriyeen haysta, nus iyo nus way u kala dhisan karaan. 2 nus way u kala dhisan karaan oo min nus waa laga iibin karaa labada qof haddii ay soo wada dalbadaan. nus walba cabirkiisa 7/20 uu noqonaa. gurigan hadda filada ah waa u jeedin 2 nus uu dhisan yahay, saas idinkugu dhismi karaan. lacagtiisuna waa raqiis. markaa booskaas lacagta lagu rabo waa 22,000. ma aamini kartaa Daarsalaam laamiga boos u jiro 300 oo tilaabo 22,000 lagu helaya oo deegaan camran ah. way jiraan kuwa laamiga uga dhow laakiin ay durduurtaa eriyadiisoo dhan, laakiin booskan bartamihii deegaanka ama deegaankii gudihiisuu ku yaalaa. lama dhihi karo waa meel duura ama waa meel fog, labadaba. daqiiqadaha yarka ah oo muuqaalka uu noo socday baa ku dareemi kartaa, anagoo weliba waqti badan asaga ag taagnayn oo cabaar agtiisa ku qaadanay. laamiga waa kanaa. booskan haddaa kasoo dhaqaaqnay. kilomitirkan waan idin tusinayaa saa u xaqiiqsataan. kilomitirka wuxuu noqday keliya 300 oo tilaabo. aargadan weli maanan gelin. 22,000 ku qaado. haddaa nus iyo nus rabtaana min 11,000 ay noqonaysaa. soo dhawaada ka faa'iidaysta.